maxaad kala socotaa ereyada qiirada badan ee heesta tagto taasoo ay ugu talagaleen BTS taageerayaashooda xamaasada badan moogtahay heesaha kale Just One Day Dancha War of Harmonies in xidigahani gabi ahaanba ay kaga waramayaan gabi ahaanba dhibkii ay soo mareen mase la socotaa wixii ay kala kulmeen qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn K-pop iyo kooxahaasi xanuunkii ay badeen dabaaldega sanad guurada tobnaad ee kooxda iyo waliba kelmadihii tirana ee halkaasi ka yiraahdeen xilli la wada sugayay. Why would they disregard the hard work and contribution of the people that worked on the song just because of Jung Bobby who intaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan kaga jawaabi doonaa barnaamijkeena maanta balse ka hor waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo sida quruxda badan aad ula falgashaan markasta barnaamijyadeena idinkoo like gareynaya subscribe ayo ku soo biiriya channelka YouTube-keena Baaldahab TV ana waxaan idin leeyahay waan idin ogahay midaasi mahadsan idin saaxiibayaal 언제나 밝고 해맑은 사람이라고 믿어 의심치 멋진 소원들이 멋진 행운들이 taageerayaasha iyo faniska kooxda fanaaniinta K-pop-ka ee BTS ayay u heedayaamahan maalmo xiiso badan kadib markay kala qayb qaateen wiilashooda dabaaldega sanad guurada tiimkan oo ay ka soo wareegtay wax ka badan 10 sano 9kii bishan June ayay ahayd markii ay soo galiyeen bartooda YouTube ee Bantan TV muuqaal dhererkiisu yahay 16 daqiiqo oo ay ku xusayaan sanad guuradii tobnaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay kooxda iyo fanaaniinta la magac baxday BTS wiilashan iyo 7 xubnood ee BTS ayaa lamaaya markii la aasaasay la soo kulmay jawiye iyo xaalado kala duwan oo mid waliba leeyahay xasuus gaar ah waxay la kulmeen dad xaasidaya nacayb daran bahdilaad iyo waliba marar badan oo gabi ahaanba la isku dayay in guulooda la sortaago balse haddana sidaas oo ay tahay waxay dhaheen markasta anagu waxaan nahay BTS mana jirta dib u noqosho ama dib u laabasho their fans for their success, recognizing the crucial role that ARMY plays in their rise to intaas waxa uu dheerano dhiirigelina faan isu samaynaya wax kasta iyaga dartood kuwaasoo ay kala kulmeen jacayl aan caadi ahayn iyo taageero dhaafsiisan caadiga waana sababta ay gabi ahaanba ugu suurta gashay inay ka soo gudbaan caqabadihii waqtigaasi waxaa laga dareemayaa heesahooda kala Just One Day Dancha War of Harmonies iyo waliba qaar kale oo badan sida ay gabi ahaanba ugu jireen dagaal dhinac kasta oo balse marnaba aanay isu dhiibin ilama iyo ugu dambeyn ay ku guuleysteen bilada qaaliya ee Grammy ee gabi ahaan caalamka ka noqdeen waxba lagama qabtaan running after BTS as they've decided to branch out into previously unexplored areas in 2019 waxaan odhan karnaa BTS waxa qudhay ay ku faanaan misana dheer yihiin kooxaha kale waa faniska iyo taageerayaasha xamaasada badan kuwaasoo u hayay jacayl waali ah waxaan ka dareemi karnaa heestooda Take Two oo ay soo galiyeen bartooda YouTube maalinimadii shalay inay tahay hadiyad ay ugu talagaleen kaliya faniskooda aadka u jecel waxaa cajiib ah heeskan inay ku jiraan ereyo qiiro badan misana muujinaya sida aanay u socon karin la'aantood iyo inay gabi ahaan bogsoon yihiin sida ay muhiim ugu yihiin waxaana ka mid ah ereyada heeskan Your tears help us stand up on us again oo hintiina waxay naga caawisay inaan kacno mar kale ama baan istaagno xataa haddii bacaad ku noqon lahaa badweyn waan wada dabaalan lahayn kama cabsanayno cidna waayo waxaad tihiin garbaheenna haddii aan mugdi dareenay indhaheenno waxay leeyihiin awoodda aragtida mana kala lumayno mar kasta waxaad tihiin dhinaceena erayadan ama kelmadahan ayaa qaar xaqiijinaya sida BTS iyo taageerayaashoodu marnaba aanay u kala hadhin amaba u kala maarmeen iyo waliba sida ay ugu og yihiin jacaylkooda iyo taageeradooda faniska iyo taageerayaasha kooxdan ayaa loo yaqaanaa BTS Army sida saxda ah waa ciidan shaqadiisuna waa ilaalin iyo protection taasoo kaga difaacaya cadowga iyo nacabka dalkiisa halka taa beddelkeedana taageerayaashani u yihiin kooxda sidii ciidankii oo kale misana aanay u ogoleen dhaliil iyo dhibaato midna magacan ayaa soo baxay bilowgii intii kooxdu la kulmaysay caqabadaha adag misana gabi ahaanba ay u baahnaayeen
ee garab istaaga xilli kooxo waaweyn ay gebi ahaanba la xifaaltameen lacag ku bixiyeen sidii loo dumi lahaa BTS halka weliba K-pop lala maragsaday iyagoo lagu eedeynayo copy iyo inay gebi ahaanba soo minguuriyaan kooxaha kale waxa ay sameeyaan xataa labiska iyo heesaha gebi ahaanba ay qaadaan inay soo xadaan amaba soo copy gareeyaan balse waxaasoo dhan wixii ka difaacay misena iska garab taagay una muujiyay dareenka iyo taageerada waxay ahaayeen BTS Army iyo taageerayaashan xamaasada badan waana dad fara badan misena balaayiin kuwaasoo ku kala nool daafaha adduunka balse kaliya wadaaga magaca iyo mowqifka BTS Army iyaguna waxaan odhan karnaa heestan la magac baxday Take Two ayay u hibeeyeen sidii ay shaaxisay shirkadda kooxdan iska leh ee Big Hit Entertainment xilli ay caddaysay keliya weedhaha heeskan inay turjumayaan jacaylka ballaadhan ee faniska iyo taageerayaasha kooxdaasi BTS Army. It's clear that the 7 members of the group have overcome countless obstacles and achieved unprecedented success. intaas ayaan ku saafmeeraynaa barnaamijkeena maanta oo aan uga hadlaynaa arrimo quseeya kooxdaasi BTS haddaba daawade sidee ayaad u aragtaa sheekadeena maanta qisada kooxda dhibka ay soo mareen ereyada dareenka badan ee ku jira heeskan qaabka ay u soo bandhigeen iyo codadka waalid ee gebi ahaanba ay ku soo gudbiyeen mase odhan karnaa BTS shidaalka kaliya ay ku dhaqaaqaan waa faniska iyo taageerayaashaasi xamaasada badan kuwaasoo mar kasta garabkooda taagan misana ku lamaan hoosti ku dhaa fikirkaaga sidaad u aragtay sheekadeena maanta si lamida muuqaalka aad jeceshahay inaan ku xijino midkan like garee fidyowga subscribe channelka YouTube-keena Baldahab TV lana wadaag saaxiibadaada haddii ay macquul tahay